السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قروح بدن كسر هذا فيديو عصب جمعة وناكسن وقتي كوتا وناكسن هبله قروح بدن ومعلن جمعة صلي النبي أبدنا اللهم صل على سيدنا محمد هبله قروح بدن لما أنت نأيود عافمت قبتنا رجينا يا ودين روتين الشقدي الدون كمان تعقبتها بلي قروح بدن سوري دوام وقالك إلى جري يشير جري قسالد إلى رقم كوتا على سرت ugu fudud dharkaaga si qurux badan ee kugu dhaqi karto waa baking soda insha Allah isticmaal dharka walbo aniga waa u isticmaalaa dharka caruurta iyo dharka waaweyn intaba abaya waxayna soo dhahday abayo baatiga ay dhibay 6 bil haduu ii gaaray dhahdo mala fiirin karo qasaaladan ku dhaqaa baatiga حبيبتي وما صنت سيد قروح بدن قيبت كومنتيga ay igu soo qortay su'aashaas waa ka mahad celinaya insha Allah sida ugu fudud dharka loogu dhaqan karo dharka baatiga qasaalad in lagu dhaqo in gacan lagu dhaqo teeba fiican labaduba seema ita aniga qasaaladna waa ku dhaqdaa gacanna waa lagu dhaqan jiro ma had laakiin 90% qasaalad ila dhaqa gabdheena Soomaaliya jooga ee wada isticmaalaan noo wada taalo hableey quruxda badan قسالة إلى دخل كوتال إن شاء الله موقالك أذيقا إسكاله أذيقا مشغول سنين فيرس إن شاء الله وحبذنا كفائدة دونتا سيرت أغفضت باتي قادة إنديهيس اسكو بدري دونين أو إنا هاد بصوق قدي لمودا يبحيتها مروال إن شاء الله إنا كو أقدد بيها نظيف كأي أو مديسة شامبديسة عرفسديسة باكينو كلا هدو كويال إن شاء الله كو دقو أركانا كلا سار خاصة dharka ragga shaararka ma ku dhiban tahay marka qasaalada ku dhaqdid yaa gacanta soo qaadid kadib yaa kuleetig iyo meelaha luuqluuqa gacanta hada ku rugi jirto waa ka reesanaysaa bakin isticmaal abaayadan kale waxayna soo dhahday xabiibti noo soo dhiib adiga ayaa uu igu horeeyay dhahday qof aan ka maqlay from kalkacyo halkaan ka madcinaya xabiibti waa muxug abaayadan ma sha Allah tabarakallah qof kalkacyo ka soo baxay muqdisho jooga hadii ay ogtahay insha Allah lambarkayga ku soo qoraya abaay si markuu soo baxay insha Allah waa kugu soo dhiibaya waa hadiyadaada gabdho farban 3 gabdhood insha Allah hadiyadaas qaadan doono oo muxug ma sha Allah tabarakallah canjeeladan saan u qurux badan gaduudan kor iyo hoos softigaana qadaan ka dhiganay canjeelo qadam ku cuntay oo waliba ka sameysana ku dhaay qamadi abaayadan kale waxay dhahdaa abaayo caanaha naaska maxaa badiyo please noo soo sheeg abaayo naaska caanaha sirta ugu fudud ku badin karto waxay tahay ina cuno isku dheelitiran isticmaashid cabitaanaadka aabadsatid naaska mar walba cunuga aad siinaysid ina listid abaayadan kale ma sha Allah tabarakallah abaayadan soo weydiisay caanaha maxaa badiyo ربلي وقشي وجوابته وحيد هذي سالبكذا بتصو يبيها عد يقدرت هذي عبيتان كسميسة هذي قدرت عبيتان كسميسة أبا ما شاء الله تبارك الله بلي وقروح ذبذن جروب كلا تلين هاي صوبت أفرين هاي يا وإذن كهبلي وقروح ذب مركي هاي ذا سؤال يسوي ديس هاي ذا كل ربلي وقشي وجوابته ماشي محاك صباح هاي إن إسكتير سنة هاي أو هاي ذا كلا وفائدة نسو mar walba waxaan noqonaynaa hooyooyin iskaaba isgarabsado mar walba insha Allah guuleysto ilmahoodana si caafimaad ugu koraan balanteena waa la talin hooyo insha Allah mar walba ina isla talino yaa garabi gaashana iskuna hablay qurux ba maasantihiin gabdhay quruxda badan mar walba commentiga quruxda badan ii soo qoray halkaan idinka mahadcelinaya hablay quruxda badan abaayadan kan waxay soo dhahday assalaamu calaykum xabiibto meel walba ma laga helayaa الله كبركي حبيبتي أفر سوق قران سو شيء فيديو جهرة سوق كاران مقدشة دا جوكتد أفرت السوق كيلي سوق كاران سوق حولها إيو شيبيز سوق توفيق أفرت السوق متكودة إن شاء الله كراسو ما شاء الله ونفي عن قبلها هيليكر إن شاء الله كفاءة يستمحوا قبلها هيليكرين إن شاء الله وني إيمان دونا ماشي جوكتان إن شاء الله أبايدا كلام وحي صار هذا ما شاء الله جزاك الله خير ولا شيء ونو فائدة الله كشرفه aniga mehelay dhahde waxaan joogaa Puntland hambaliyo xabiibta adigane Puntland qof muqdisho imaaday oo Puntland u soo noqonay hadii aad ogtahay lambarkayga soo si insha Allah hadii ahaan kugu soo gaari doona ayadana comment qurux badan ay soo qorto ma sha Allah tabaaraka halkana ka mahadcelinaa xabiibti ilaahay cilmigaada iyo aqligaaga ku dheeree wallahi waxa tahay qof karti badan dadka jecel iyo dalkeeda ma sha Allah aniga waan bedelay dhahday bedel cuntadaada macsaro ayaan siiyaa dhahday macsaro ayaan bilaabay wallahi ma sha Allah si u rabaan
kaala aragay dhahday marka maasha Allah tabaaraka halkan ka maalinay xabiibsi quruxda badan oo u bedeshay maanta waxaan noo wadaa cabitaan laga sameeynayo maxog insha Allah maadaama shaqo fara badan aan qabanayo waxa u baahana waxa energy ka helayo tamar fara badan aan ka helayo marka insha Allah cabitaanka maxoga awood fara badan oo ku siinayo cunto xataa uma baahnid booska cuntada wuu ku gali karaa hableey quruxda badan qaasatan gabdhaha ka cabanaya caanaha naaskooda ee yaryaha isticmaala maxoga hooyooyinka xaamilada muhiim u yahay insha Allah isticmaala qof walbo caafimaad jecel insha Allah ha isticmaalo dufana ka buuxa blay qoray faa'iidiisa hore uga soo hadlay insha Allah ka faa'iideysta maxoga qaab fara badan loo sameeyo inta qaab u sameysanaay insha Allah mar walba waan ila soo wadaagi doonaa hablay quruxda badan waa jarjaray waa nadiifiyay dabka saaray oo mitaad yar saa'id uma bisleenin marka faa'iidiis inaa heshid arabtid inaa saa'id u karina fiican ceerinkiisa aniga ma isticmaali kar laakiin ceerinkiisa inaa si isticmaashaa fiican caana waaye qofkii isticmaali kara sidaas ku isticmaala maalinta 3 koob hadii ay isticmaashid result qurux badan insha Allah ka heli doontaa jauntis xanuun waa kareysa doontaa hadii mataana ay jeceshaa insha Allah biidnal cream ilaahay uu kugu siin doonaa laakiin waa inaad joogtaysid oo waqti fara badan ay isticmaashid insha Allah muhiim uu noo yahay rag iyo dumarba insha Allah isticmaala caruurta siista mar walba insha Allah maxoga hadii ay heli kartid insha Allah hableey quruxda badan aan ka faa'iideysano waa maalin jimca aan isku soo duceyno qof walba muraadkiisa ilaahay ha u sahlo inta naga xanuunsan ilaahay noo caafi inteen caafimaad cimri dheer caafimaad ilaahay noo siiyo abaayadan kalena comment qurux badan ee caanaha ariga ee kasoo gudbisay wallahi ay dhahday abaayo waa xaqiiq ana ku daalay dhahday bakteeriyada caloosha shuban siyaado waxay dhahday bishii 3 mar sokorta dhici jirtay laakiin maalinta ku bilaabay cunugayga caanaha ariga alxamdulillah ilaahay waa igu guulay marka ma sha Allah tabaarakallah xabiibti sida quruxda badan video inta dhageysatay comment qurux badan noogu soo qortay yaa waxyaabaha hooyooyinka yaa isku kaashanayno ama la talin hooyo groupka sababta u sameeyay waxay tahay hooyadan insha Allah wixii ay ogeyn hooyada kala isticmaashay mar walba aan waxa faa'iidada sababta u soo sheegay waxay tahay hooyo isticmaashay inay qaybta commentiga isku soo muujiso hooyada faa'iidada ogeyn inay ogaato ee ka faa'iideysato mar walba gabdhihii quruxda badan waxa isku nahay garab iyo gaashaan sida ilmaheena si qurux badan noogu koraan waa mahadsantiin sida igu duceynaysaan ii jeceshiin in ka badan aniga aan jecel hablihii quruxda badan halkaan aniga maad celinaya waa qiiroonaya marka ii soo duceysaan marka comment qurux badan ama result waxa hesho kale ii soo gudbisid farxada dareemaya hablihii quruxda badan waa mahadsantiin mar walba asgiiri galin hablihii quruxda badan waa dheer routine maalinta shaqada aan qabtaan ku dhahay qaasatan maalinta dharka dhaqaayo dadku waxa hoosho dhan gabagabeeyo hadii aad tahay qaybta commentiga insha Allah isku soo muuji wali muuqaalka like daasaan insha Allah like garee share garee hablihii quruxda badan mar walba muhiim ku yahay insha Allah su'aasha noo taagnayd videoga u sameeyay sababtu waxay tahay abaayada soo weydiisay baatigeyga 6 bilood markuu gaaro uu cadaana sababtu uu cadaanayo insha Allah waxa soo dhan gadaalan igu sharxi doona mar walba insha Allah aan ka faa'iideysanahay hablihii quruxda badan maxoga waa noo muhiim hadii ay heli karto insha Allah ka faa'iideyso 3 gabdhood insha Allah gabar Hargeyso iyo gabar Puntland iyo gabar Gaalgacyo 3daas gabdhood hadii qof Muqdisho joogo oo meesha joogan aadayo hadii ay helaan insha Allah hadiyad ahaan ugu dhiibi doonaa ableey quruxda 3daas gabdhood insha Allah ha soo dhadhamiyaan ha soo arkaan faa'iidadiisa insha Allah maadaama meesha joogan ay ka heleenin abaaya waxay dhahdaa adiga qofka ugu horeeyo aan ka maqla ee tahay maxog marka maadaama qofka ugu horeeyo aan ka maqashay ee qofka ugu horeeyo hadiyad ahaan kuugu soo dhiiban in aan noqdo jecleystay hablihii quruxda badan dhammaan gabdhaha insha Allah ay heli kareen mar walba insha Allah hadii qof Muqdisho joogo og tahay insha Allah lambarkayga waa soo siin kartaa waan kuugu soo dhiibaya waan idinka mahad celinaya sida quruxda badan mar walba insha Allah garab iyo gaashaan ay ugu taheen cabitaanka marka cadid hooshi aan qabtay yaa hooshi oo dhan aan ku dhaadaalkeedu idaajirkayga dhan aan ku dhaa tamar fara badan aan helay awood fara badan aan helaysa kala arag muhiim ku yahay qaasatan hooy xaamil hadaa tahay isticmaal cabitaanka maxoga adiga iyo urjiifkaagaba muhiim ku yahay hadii hooyo aad tahay nafaqada jirka kor inay u qaado faa'iido fara badan ee ka hesha hadii ay jeceshaan oo isticmaal cabitaan ahaan maalintii 3 koob
isticmaal result qurux badan insha Allah kaaga soo bixi doono cabitaanka maxoga hadii aad baratid cabitaanka la dhan waa iska dhaafi doontaa waa cabitaan yar oo soft ah wax sokorna hablihii quruxda badan ha ku darina sokorta dabiiciga asigay ku badan tahay sokorta wanaagsan laga helaa hablihii quruxda badan hore uga soo hadlay haddana waan iigu celinayaa hablihii quruxda badan faa'iidada maxoga laga helo hore uga soo hadlay hadii aan ugu cusub tahay insha Allah dib u gal YouTube-ka insha Allah waa ka helaysaa hablihii quruxda badan insha Allah muuqaalka like gareey share gareey jimco wanaagsan waqtigay ku tahay wanaagsan insha Allah isku soo duceena waa maalin jimca saliga nabiga aan badina hablihii quruxda badan mar walba insha Allah muhiim ay ku tahay sirta kaliya baatigaaga isku bedelayna maxay tahay dharka marka dhaqtin isla markaas ina aruurisid baatigan gabdhaheena quruxda badan in badan ina ogtiina rajeynaya baatiga gadgadis ma u wartaa mas dhanka oo loo gashta u warataa qaybta commenting insha Allah noogu soo qor hadii aad gadgadis u waratid waa fiican tahay baatigaana indhaha kama dhiman doono mar walba dharka xariga inaad ku iloobin oo marka dharka dhaqdidba waqti si maalinta dharka dhaqdid dharkaas ina armaajada ku gurtid isku day insha Allah dharkaaga habeenkii uga seexan banaanka habeenkii qabow waa dhacaya maalinta qoraxa ku dhac maradaas maxay noqonaysaa maro bahdilan mar walbana dharka cadaanka iyo dharka midabka leh ina kala dhaqdid hablii quruxda waa ogtihiin insha Allah hooyooyinka ogeena insha Allah ugu faa'iideynaya baatigaaga sanadkan hadda soo gada iyo sanadka hore inuu isku mid ahaada la rabaa hablihii quruxda badan mar walba muhiim ay ku tahay sirta baatigaaga oo isku bedeleenin yaa oo ku qurux badnaanaya hadii aad jeceshahay muuqaalkan adiga iskale baatigaada mar walba si gadigidis u war marka dhaqaysidna biyo nadiif ah oo shaambada oo mariska mar walba wax walba oo bilaaw asiga marada ku bilaaw dharka salaado kale iyo dharka hoosha ina kala saaritida fiican sida dharka oo salaado kale ku noqdaan dhar qurux badan oo nadiif ah dharka kalena waa nadiif laakiin baatiyada sida oo waqti fara badan ay haysto kale ina hoosh ku qabto oo salaad in lagu dukado qurux badan adigoo baati qurux badan oo cuseeb armaajada kaaga buuxo waxa dhacdo in lagu dukado dirac bolol marka mana fiicna habliga quruxda mar walba marada ugu qurux badan salaad ku duko muhiim ku tahay aan marka week waxa sameeyaa 4 dirac oo kala salaada marka u soo bixiyo 2 bariyo kala marka haysto waa iska bedelaa mid kale oo soo baxsada salaada ku dukada inta salaada gooniya meel u dhigtaa qaanad gooniya ileeyihiin inta jika joogan ayagana qayb gooniya ileeyihiin mar walba insha Allah sidaas dharka inuu ku kala saaran yahay weekan dharka dhaqdana week soo socda week ku sii xiga intaba ma xirta habley quruxda badan inay ku huuraan dharka waa la huuriyaa habley quruxda badan baat quruxdiis marabta quruxda ay ka dilin marka wareysan insha Allah gadgadis u war biyaha aad ku dhaqaysid mar walba biyo nadiif ah ku noqdaan qaasatan Soomaalideena ama hooyooyinkeena waxay u badan yihiin dharka waa la isku dhaqaa dharka adduunka hadii aad dhar dhaqdid yaa biyo dhar aad ka bixisay dharka loo nadiif ah ku ogaa maradaada indhaha way ka dhimanaysaa dharka cadaankan insha Allah isku dhaqo isku soo ku dhaqo mar walbana sirta dharka aan u isticmaalo baati wala wax walbo aan dhaqaay habley quruxda badan oo indhahooda ma sha Allah tabarakallah ay ku noqonaya bakin soda isticmaal qaasatan midka loogu talagalay nadaafada iyo dharka isticmaal habley quruxda badan yaa ragga oo dharka ragga ku dhahay hadii aad ku dhibantahay ku dhahay kuleet rugo waa kareysanaysa insha Allah isticmaal baatiga hadda intaan aan tusinayo waa intii salaada u talagal weekend aan isticmaalay waa la xareenaya 4 kala soo baxsanay ama 3 sidee markaas ay noqoto isticmaalkooda 3dan diracna waa kubi ah shaqada aan ku qabsado jikada markaan galaayo aniga diracii ileeyihiin gaba saaro markii aan ka soo baxano waa qubaysta dhar gooniyan gashta oo guri joog ah salaadeedana waa ku dukada habley quruxda badan mar walba insha Allah dharkiisaas inuu ku kala saaran oo weekii 7 dirac 8 dirac marka isticmaashid nadiifisid la laaftid ina salka dambe armaajada u dhigtid oo qayb kale 8 kale soo komarsatid sida weekend kala hadan u isticmaal mar walba dharkaada oo huuro mar walba baatigaada qurux badnaada mar walba baatigaada oo qurux noqda mar walba baati sanad walba insha Allah baatiga soo gaday sanad kale inay isku ekaadaan isku qalidid waa arki doonta insha Allah muuqaalkan adiga iskale abaayo baatiga mar walba dhaqitaanka iska sax waxyaabaha u isticmaalaysid muhiim ay ku tahay qaasatan inay ku dhaqdid biyo nadiif ah habley qurux ku dhaqdaan laakiin dharka la isku dhaqaayo ma fiicno baatiga quruxdiisa marabta baatiga inuu qurux badnaado ma jeceshahay insha Allah biyo nadiif ku dhaqo qasaalid ila dhaqa daa isticmaashine
mar walba biyo nadiif iyo dharkii nadiif ah kala saaratay isticmaal waa kareysan doontaa qasaalad maanta oo dharka ay ka bixinaysid waa maasantii muuqaalku ilaa gadaasan insha Allah ilaa garey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.